علي السعيد ريغل وزيرka wasaaradda dib u dejinta ee Soomaaliland ayaa hotel ambassador ee magaalada Hargeysa waxa uu ka furay mashruucan oo socon doona muddo 3 sano ah waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday wasaaradda dib u dejinta qorsheynta qaranka deegaanka iyo waxbarashada mashruucan ayaa wax laga qabanaya baahiyaha aasaasiga ah ee la soo dirsay dadka barakacayaasha iyo qaxoontiga ku sugan gudaha dalka waxaana iska kaashaday shan kamid ah hay'adaha ajaanibka iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala gudaha dalka oo ay kamid yihiin hay'adda World Vision, DRC, NRC, Concern Worldwide iyo sidoo kale hay'adda Tesco madaxa mashruucan shanta hay'adood Xasan Cabdi Shire ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo waxyaabaha lagu qaban doono mashruuca kan oo laga fuliyo labada gobol ee kala ah Hargeysa iyo Burco socon doona muddo 3 sano ah ayaynu mid kamid ah kulamadiisii lagu qaban jiray Nairobi aynu maanta halkan u soo rarnay inaan ku qabanno kulankeena maanta aynu isugu nimi waxay noo daahfuri doonaa hadii alla idmo wasiirka wasaaradda dib u dejinta Ali Said iyo waxa kale oo iyana halka goobjoogaalka shaqaale ka socda wasaaradda kala duwan sida wasaaradda qorsheynta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada oo ah mashruucan u ah key stakeholderska ama mashruuca kan hay'adu ay la fulin doonto hay'adahaas ay la fulin doonaan wasaaradda ay la fulin doonaan kulankeenan waa maanta uu ku koobnaan doonaa waxaynu eegi doonaa oo aynu ku qorsheyn doonaa mashruucu sidii uu sii socon lahaa waxyaabaha hore soo dhacay inaynu dib u eegno iyo qorshayaasha dambe sideen isla eegi lahayn si wada jir ah Ali Said Regal wasiirka wasaaradda dib u dejinta ee Soomaaliland oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday kororka dadka barakacayaasha ah iyo sidoo kale baahiyaha aasaasiga ah ee la soo dirsay waxaanu hay'adahaasi ka codsaday in ay soo bandhigaan qaabka ay u fulinayaan mashruucan farxad bay tahay inaan kala soo qayb galo kulankan ay isugu yimaadeen hay'adihii waday mashruucii wada jir ama Somaliland European Solution oo aynu hore u daahfuray mashruucani wuxuu ahaa mashruuc aad u qiimo badan waxaan filayaa inuu wixii bilaabmayna si wacan u socdo wixii kalena uu si loogu talagalay u socon doono annaguna ka dawlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan waanu idinku barbar taaganahay diyaar waanu u nahay inaanu idin la qabno wixii aad nooga baahataan oo aanu daboollo waxaynu u baahannahay kulley dadka maanta Soomaaliland barakacayaal badan baa jiro waa dhibaatadu way badan tahay oo abaartii baa si xun u saameysay oo 100,000 oo qoys iyo dheeraad baa ku barakacay oo magaalo kasta iyo goob kasta oo aad tagto waxa jooga dad baahan oo barakacayaal hase yeeshee baahida Ilaahay baa dhamayn kare wixii wax laga qaban karo ayuu baa laga qabanaya hadii la haydmo mashruucan ayaa inta uu socdo waxa laga fulin doonaa gobolada Togdheer iyo Maroodijeex